warkii oo fidsan madaxweynaha dowladda goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa kormeeray xarumaha ciidamada qalabka sida dowlad goboleedka Jubbaland ay ku leeyihiin magaalada Kismaayo. madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa saaka booqday qaybo kamid ah xarumaha ciidamada qalabka sida dowlad goboleedka Jubbaland ay ku leeyihiin magaalada Kismaayo, gaar ahaan xarumaha nabad sugidda iyo daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland. ugu horeyn waxaa madaxweynaha uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamadii oo xarumahooda kormeerka shaqo ku tagay. muddadii uu halka ku sugnaa waxa uu madaxweynuhu kula kulmay saraakiisha nabad sugidda iyo qaar kamid ah ciidamada halkaasi jooga. madaxweynaha ayaa ku dhiirigeliyay ka qayb qaadashada amniga iyo xoreynta deegaanada Jubbaland. madaxweynaha ayaa sidoo kale la kulmay saraakiisha ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland. mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa u jeediyay ciidanka, waxaana erayada madaxweynuhu u badnaayeen guubaabo iyo dhiirigelin ciidanka soo majeystayaasha geesiyaasha Jubbaland lagu dhiirigelinayo inay xoreeyaan deegaanada wiilasha yararka ee taalka daran ee la qalday ee argagixisada al-shabaab ay ku sugan yihiin. dhammaantiin waxaa tihiin ciidamo tababaran oo u muuqda inay leeyihiin tayo dhinac walba leh, waana doorkii Jubbaland ee ahaa in la soo saaro askari dhinac walba ka diyaarsan. ma u malaynayo in cadawga al-shabaab ay idin babac dhigi karaan. waxay qayb ka ahaayeen erayadan dhiirigelintii madaxweynaha uu sameeyay ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Jubbaland. madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa la kali ahaaday ciidamada inta badan, waana mid kaga duwan yahay dhammaan hogaamiyaasha Soomaaliya, waxaana madaxweynuhu rafiiq gaar ah leeyahay ciidamada qalabka sida dowlad goboleedka Jubbaland, taas oo ku dhiirigelisay in ciidamadu ay mar walba heegan u ahaadaan gudashada waajibaadkooda. madaxweynuhu uu arkay inay yihiin dadka ugu mudan shacabka Jubbaland marka laga tago ciidamada qalabka sida inay yihiin cidda ugu mudan.